iyadoo maalmihii u dambeysay dowladda hoose ee degmada Caynaba ay barnaamij sharfi iyo wada bannayn ka weyday deegaanka Ceeldhaab oo ka tirsan gobolka Saraar ee waxa maanta magaalada Ceeldhaab booqday maayirka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan ku-xigeenkiisa Cabdixaafid Ibraahim Abubakar Libaax Salaax iyo xildhibaan Mursal Axmed Maxamed oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba waxaana mas'uuliyiintani kormeer ku sameeyeen habsami u socodka wadooyinka sarfeyga laga saarayo deegaanka Ceeldhaab iyagoo bulshada deegaanka Ceeldhaab uga mahadnaqay sida dowladda hoose ee degmada Caynaba ay gacanta uga siinayaan barnaamijkan sarfeynka lagu hagaajinayo bilicda deegaanka Ceeldhaab anagu horeyn baa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan iyo ku-xigeenkiisa Cabdixaafid Ibraahim Abubakar Libaax Salaax iyo xildhibaan Mursal Axmed Maxamed Shabeel oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba waxaana ka warbixiyeen sarfeynka dowladda hoose ee degmada Caynaba ay ka wado deegaanka Ceeldhaab maanta ay bisha tahay 25 bisha saddexaad 2023 oo ayoonkii saddexaad ee Ramadaan waxaanu joognaa tuulada Ceeldhaab waxaanu ka sameynaynaa hadii alla idmo sarfay waxaanu bixinaynaa wadooyinkii xoolaha iyo kuwii dadkaba meeshaas wadadii xooluhu mari jireen la soo cidhiidhiyay ayaan maartay wadadii xoolaha bixinaynaa insha Allah waxaanu rajaynaynaa maalmaha soo socda inaynu magaalada oo dhan la sarfaygeeda wada dhamaystiro de waa shaqaynayna iyadoo Ramadaan hadii alla idmo golaha deegaankana aad iyo aad baan lagu mahadcelinayaa iyo dadweynaha tuulada Ceeldhaab iyo guddidooda si wacan noola shaqeeyay waxaan leeyahay waa inoo shaqo salaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo bisha tahay 25 bisha saddexaad 2023 waxaanu joognaa Ceeldhaab waanu ka wadno hawlihii shaqo ee maalinlaha ahaa ee aanu haynay ummadda waxa maanta aan wadnaa sarfey baan wadnaa iyadoo Ramadaan aan maanta shaqeynaynaa maalin saddexaad ah dadweynaha reer Ceeldhaab waxaanu leenahay wixii hore wuxuu cashuurtayna waxaanu leenahay keedihiinii hore san cashuurtiisa ku waajibay iska bixiya wuxuu dhul cusub cashuuranayaan sarfey ka saarayna insha Allah billahi kariim inay cashuur si degdeg ah u bixiyaan baan rajeynaa insha Allah billahi kariim raxmaadkii bana ilaahay waa inoo shubay alxamdulillah rabbil caalamiin halkan aanu ku suganahay waa Ceeldhaab maanta oo taariikhdu tahay 25 bishii saddexaad waxaanu ka bilownay Ceeldhaab sarfey hadda waa 12 iyo 10 daqiiqo ilaa iyo saakalka waxaanu ka wadnay hawlgal ballaaran oo aanu ku banaynayno wadooyinka maxay ahayd dhulkiina aanu ku bixinayno maanta oo Ramadaan waxaanu u adeegaynaa shacabkeedii soo doortay bulshadayadana waxaan leenahay nala shaqeeya oo sida aan waxa weeye iyadoo Ramadaan oo xilli jadiid ah oo qorraxdu kuushahay aan idinku adeegayno waxa weeye nala shaqeeya ilaa haddana waxa si wanaagsan ay noogu socotaa in badanna waanu shaqeynay wixii harayna waxa weeye insha Allah waan soo gabagabayn doonaa waan sii wadi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Salabaan علمي سعيد عتية سلاماكيكو ورقة التلفزيون كعالم سهن ديجان كعالم واو اسبوعك يسوي في عيسى صاحبي wadkeesh sama ما شاء الله صح ما عاد وش بصي waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa